Bandhigga buugga Hadima Haween ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaybo ka mid ah dhakhaatiirta, bahda qorayaasha, iyo weliba qaybaha kale ee bulshada reer Muqdisho ayaa buux dhaafiyay bandhigga buugga Hadima Haween oo ka hadlaya dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga. Dadkii ka soo qayb galay bandhigga, isla markaana ka hadlay goobta ayaa bogaadin iyo dhiirigelin u diray qorayga buugga Hadima Haween, Dictoressa Faadumo Ismaaciil. Waa bogaadinayaa gabadha aad iyo aad baan u bogaadinayaa inay isku day samaysay, inay dadka wax u soo kordhisay, inay macluumaad meesha ku aruurisay. Waxaana leeyahay hore u soo soco oo bilaha soo socday sanadka soo socda kuwa kale aan ka qayb galno. Dhalinyaradana waxaan ku dhiirigelin lahaa oo aad iyo aad ugu dhiirigelin lahaa in la isbaro, in wax la qoro, in la isbaro oo qofku uu appetite u yeesho inuu dadka wax ku soo kordhiyo. Arrintaasi waxa weeyaan waa arrin muhiim ah oo aad iyo aad waxtar u leh. Intaas kadib waxaan ku soo koobayaa warkayga. Hambalyo ayaan leeyahay. Waxaana leeyahay Allah buugaaga iyo xoogaaga Allah barakeeyo. Faadumo waa u mahad celinaa gabar wax baratay oo haddana wixii ay baratay maxay tad ummadda la soo wadaagto waaye khayr badan Allah siiyo. Faadumo dadaalka buugga kaliya ma ahan annaga xarunteena maamo ugaaso saaxiibay nala tahay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bogaadiyeen walaasheen Tur Faadima oo runtii dadaal dheer iyo juhdi bixisay qortayna buug muhiim u ah bulshada. waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa insha Allah dadka meesha fadhiya oo ka soo qayb gala martida ahne inay ka faa'iideystaan buuggan qiimaha badan. midda labaad waxaan rajaynayaa ka bulsho ahaan runtii way inagu yar tahay qoraalka inaan wax qorno. waxaan rajaynayaa insha Allah tiimka hadda cusub bilaabay in ay sameeyaan qoraalada inaan bogaadiyo runtii laguna dhiirigeliyo markii ay buug qoraan in buuggooda suuq fiican oo helo dadkii wax ka bedelaan. Dr. Fatma is a great job. Thank you so much for this work. Congratulations. Hambalyo, nice to meet you. mahad celin kadib waxaan bogaadinayaa walaashay Faadumo runtii shaqo aad u wanaagsan oo aan hadal iyo qoraal lagu soo koobi karin ayay u tafaxidatay. waxaan rajaynayaa in fariinta buuggeeda xambaarsan yahay iyo guud ahaan fariimaha caafimaadka ee muhiimka ah ee lagula dagaalamayo dhibaatada gudniinka fircooniga uu leeyahay si guud looga wada feejignaado. intaa kadib mar raba inaan ka sheekeeyo aniga gudniinka iyo waxyaabaha la xiriira. waxaan isleeyahay waxa ay ku dhan tahay buugga. Ugu dambeyn, qorayga buugga Hadima Haween, Dictoressa Faadumo Ismaaciil ahna shaqsi u dooda tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa sheegtay in bandhiggan uusan noqon doonin mid halkan ku eg, isla markaana ay ku soo bandhigi doonto goobo kale, iyadoona u mahad celisay ka soo qaybgalayaasha bandhigga. Muqdisho waa ku daahfuray oo caawa Muqdisho way hadashay. waxaan rajayn doonaa insha Allah gobolada dalka inaan gaarsiiyo jaamacadaha inaan sidoo kale waxaan rajaynayaa jaamacadaha inaan gaarsiin doono arday kasta ee jaamici ah ee jaamacadda wata inuu qaadan doono buuggaasi oo akhrisan doono dhammaan jaamacadaha waddankeena uu gaari doono gobolada dalkana aan gaarsiin doono insha Allah idinkana aad garab igu sii doontaan si aan ku gaarsiino heerkaasi. ugu dambeyn buugga wuxuu ka hadlay fircooniga guud ahaan halkaas ayuu ku qoran yahay. waxa kasbalan kare aan ka qaadan doono ma jirto gunaanad iyo gunti iyo gabagabo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtana waalidiinteeda quruxda badan oo aan rabo inaan halkan kaga mahad celiyo walaalahay hoolka igula sugan. sidoo kale waxaan rabaa dhammaan dhakhaatiirtii, qorayaashii, guryo samo, hooyo siraad, dhammaan qof waliba ee soo ajiibay ka qaybgalka xafladani oo aan dhaho waad mahadsantiin 100% farxada ii tahay ajiibitaankiini. sidoo kale tiimka miidiyaha ayakana aad ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee u qurxiyeen habeenkeygii.